9 jirkan u dhashay dalka Hindiya ayaa la sheegay inuusan waligiis maalin gelin ka jarin timihiisa oo dhirirkooda uu haatan sii dhaafaya 24 fiid oo u dhiganto ku dhawaad 7 mitir iyo bar. walba uu soconayo dekadiisa waxa tuuran isu tagga timihiisa oo dad badan aragtidiisa ay la yaab ogeed indhaha taagaan. arrintan ayaa imaanaysa xilli inta badan ay ka walaacsan yihiin dadka ku mashquulsan timahooda inaysan booqan karin goobaha lagu qurxiyo timaha si ay u jartaan isla markaana u bedelaan hanaanka iyo haykalka madaxooda. balse 95 jirkan dan iyo heella toona kama lahan inuu timihiisa jaro. inta la xusuustana weligiis ma uusan taaban tintiisa inuu nadiifinayo mooye. dadka xaafadda kula nool ayaa u arko nin qayru caadi ah oo mudan in laga hibaysto maadaama uu xamilay arrin aysan xamili karin dadka kale, waxaana ay mararka qaar ka caawiyaan inuu timihiisa nadiifiyo halkii uu ka jari lahaa. caqabadaha ugu weyn ee haysta odaygan 95 jirka ayaa waxaa ka mid ah inuusan awood u yeelan karin inuu timihiisa nadiifiyo kaligiis ilaa uu ka helo dad caawiyo, taas oo la tilmaamay inay keeni karto khatar caafimaad.